إلهي بالكلمة محله مركب كوان وحن سلام يا أساسي حزبك كلمية أحمد محمد محمود سيراني وحن سلام يا مدحوينها قرنك موسى بيحي عبد وحن سلام يا هجانك حزبك أحمد عبد الديارة وأنا وأنا الشخصي أما سياسة حريم وهل كان كما قالوا إن لجوغي أيا سلام يا وحكلا أو سلام يا أبغاش هواك سلاميت دلنيارada iyo cid kasta oo munaasabada ka soo qayb gashay waxaan u mahadnaqayaa waxgaradkii waalidkii dhallinyaradii deegaankayga ahaa iina soo xulay xil aan ilaahay ka baryayo inaanu igu xilin maanta madashan waxaan ugu kulannay si ka duwan sidaynu ugu kulmi jirnay iyo ujeeddo ka duwan ujeedooyinkii aynu ugu kulmi jirnay nidaamka dimuqraadiga ah ee dunida inteeda badan ka shaqeeya ee aynu qaadanay ahna fikirkii qarnigii 20aad ugu guulaha badnaa hirgelintiisu sahal iyo fudayd inooma ahayn balse isku duubnideenna orol iyo isku diirahaanshiheena iyo bisiilkayna ummadnimo ayaa inaan ku simay inaynu suuro gelino waxaa lagu farxaa alla loogu mahadnaqaa oo wax weyna inaynu ka gudubnay marxaladii maqsinka aynu isku dooran jirnay una gudubnay marxalad aynu macshar isku dooranay shakhsiyan ismalihii maalin baad hakartay dadkaaga oo tiyo lahudayaad haysatay afkaaga waan la hadlay waxaan aaminsannahay taasi inay fahanka iyo baraarugga wax ka tartay mar istaayo maan lahaa dadaalana waan lahaa isku duubnaadana waan lahaa haddiiba baraarujinta bulshada in badan aan ku soo howlanaa taasina ahayd kaalintaan markaa qaban karaya waxaan istusay in mas-uuliyad iyo xil intaa ka ballaaranin dadkayga iyo dalkayga iyo calankayga iyo ciiddayda iga saaraya waana sababtaan isku soo taagay aniga iyo halaburada kale cidna diratay ma jirin damiirkaasana faray inaan istirno maanta se waxaan idinka doonayaa inay dirataan meel wax ka tari karo shaqada taalla iyo ahmiyadeedana aan ogahay isleeyahayna siday tahay baad uga soo baxaysaa xilkasnimaan ahaynow haddii uu kugu xaqdhowro xaqiiqada jirtaiyo waayadan kuu xilqarinay xeer iyo sharci wuxuu fulaan marka isla xisaabtan jiro ee raacitaankiisa wax kuugu hagaagayaan jabintiisa iyo baalmarkiisana wax kaaga xumaanayaan maanta waxaad awood u leedihiin inaad qof musharaxa aad xildhibaan ka dhigtaan balse waa su-aala miyaad awood u leedihiin qofkaad fartiinna xildhibaan kaga dhigteen inaad la xisaabtantaan waa maya haddaba golaha wakiiladu waa meesha laga suuro gelin karo inaad heshaan awood aad mas-uulkaad u codaysan kula xisaabtantaan haddaad u bog weydaanna ku beeri kartaan doorashoo dhammina waa hannaan shaandheeya qofka kursiga u qalma iyo kaan u qalmin waxaase iga markhaati tihiin in shaandhadiinna maantu tahay mid kala reebta yaa reer badan iyo yaa reer yar qofka xildhibaanka ah waxaa laga yaabaa maamuuska iyo milkaha oo bulshada dhexdeeda ku leeyahay mid la mid a inaan ku leeyahay ama ka weynba waxaanse u doortay inaan xildhibaan noqdo waa in hooyada danyarta ee bacadka fadhida iyo inta la midka ay dantooda iga dhex arkaan codkoodan ku hadlo oon baahidooda sharci ka turjumo waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo in sistamka dowladnimo u damaanad qaado qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay si looga maarmo ku tiirsanaanta reernimada warbisaa bulshadeenna ka mid ah oo reerka ay ka dhasheen aan iyagu dooran balse ilaahay u dooray tirada reerkooda iyo darteedna kuwa ay xuquuq ay lahaayeen oon haysan cid u hadasha matasha u dooda muwaadiniintuna xuquuqihii dastuurku u damaanad qaaday sida saxda hadday ku waayaan macnaheedu maaha inay xuquuqahaasi ka maarmeen waa in la helaa cid u baadi doonto inaan kuwa hormood ku noqdaan doonaya haddii allay awoodda iigu simo
iyadoo wax badan inoo qabsoomeen haddana wax badan oo inaga dadani waxay salka ku hayaan arrimo sharci si xal loogu helo waa in la helaa xubno xeerbeentiya oo xulashadooda laga baaraandego waxaa ogaataan 28 mudan ee dooranaysaan eed golaha geynaysaan eed u wakiilanaysaan ujeeddo cad oo ah dhammaystirka shuruucda iyo ilaalinta ku dhaqankooda iyo dabagalka iyo la xisaabtanka hay-adaha fulinta iyo garsoorku hadday noqdaan 28 mudane oo u arkaan in shaqaaluhu loo sameeyey waxaa u wakiilateen wax ka duwan bay wakiil ka noqonayaan oo masruufka iyo mushaharka reerkooda ah sidaa darteed in codkiina u meeldina waa muhiim ummad baynu nahay oo afduuban dad meyti ah oo ree aakhiraad ah oo ilaahay xisaabtooda ifka laalaabay haddii lagu su'aalo awowgaaga afraad muxuu ku fiicnaa door caynkii ayuu bulshada ku lahaa ma sheegi kartid mana taqaanin balse awowgaaga aad ku abtirsato ee 30 ama 20 haddii la soo hadal qaado waa damqanaysaa hiilkiisana diyaar baad u tahay taasi waxay muujinaysaa in qof kastoo inaga mid ah ilaalinayo xuquuqda qof dhintay qofna la ka tagayo waa awowgaaga dhintay kaagama baahna inay difaacdo u dagaalanto u doodo ku faanto ee wuxuu kaaga baahan yahay inaad u ducayso balse kaaga noole istuhmaya iskuna tuhmaya inuu wax tagi karo ayaa hiilkaaga baahan duruuftayda sharci kama turjubi kartid xuquuqdayda muwaadinimo ma raadin kartid golayaasha qaranka iguma matali kartid masiirka qarannimo ma ilaalin kartid waxaasoo dhan waa justification aan codkaaga ku waayi karo balse kala awood iyo kala abtirsiin baan lahayna codkiina ku waayaa waxay muujinaysaa bisay la'aan umadeed hadda ma qoran qaba ogow waxaad igu doorataa eed igu aamintaa inaanan isku soo taagan ujeeddo ka weyn in ummaddayda wuxuu saxmaa hanna aan leeyahay dareen iyo damiiri hagaana igu jiro waxaan idinla socodsiinayaa inaan wax weyn oon xeeriyo aan leeyahay oo aan kaga duwanahay musharaxiinta kale ee aad dooran doontaan u malayn maayo xildhibaanka caadiga ah ee codkiina siisaan haddii shaqadii aad u dirateen uu gabo aakhiroo dhaartu qabato mooyaane ifka inay cidi kula xisaabtamayso marka la eego sistamkeena dowladnimo iyo sida imika nahay balse anigu haddii shaqadii aad ii dirateen aan ka gaabiyo iyadoo dhaartii alla meel ii taallo haddana ifka wax badan baan ku waaya oo maxaan ku waayaa waxaan ku waayaa ixtiraamkiini jacaylkiini magacii weyne ayaad ii samaysay inaan idinku dhex lahaa iyo taariikhdayda ma doonayo in wax sheegmadaydii iyo suugaantaydii berri igu markhaati furto ee waxaan doonayaa inay ii markhaati furto anigu adaan kuu sharaxanahay ree gibile baan u sharaxanahay ree maroodijaah baan u sharaxanahay ree somalilan baan u sharaxanahay saboolkii caydha baahan baan u sharaxanahay calankii ciidiya qarankaan u sharaxanahay waxaan doonayaa inay ii ducaysaan iiguna ducaysaan in ilaahay asturo in la kala asturo isku keen asturo hadday halkaasina khayr ii leedahay ilaahay igu simo haddii kalena najayna waxaan kaga baxayaa waxaan doonaya waxa igala weyn waxaan idinla doonaya inay noqotaan qulubta inoo fiyo ujeedda ina midaysa isbeddelna codkiina kama horeeyo waxaan u mahadnaqayaa dhallinyaradii abaabulkan sida weyn uga soo shaqaysay dadkii ilaa saa ka fadhiyey inta soo safartay waxa kale oo salaamaya mudantii wasiirada lahayd ee cid walba lahayd ee halkan timiday waxa ugu qiimo badan ee qofka la siiyo qofka kala siiya waa waqtigaad ii soo hurteen ayaan idinka mahadnaqaya